iyadoo si wada jirana mashruucan ay soo kaashadeen macadka cilmi baadhista heer federaal iyo kan deegaanka xafiiska beeraha iyo xafiiska horumarinta waraabka dooxooyinka ee dowladda deegaanka Soomaalida laguna beeray dhul dhan 500 hektar waxaana mashruucani booqasho awleed ku yimid wafdi ballaaran oo isugu jira mas'uuliyiin heer federaal iyo heer deegaan oo hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Ibrahim Cusmaan isla markaana uu ku weerinayay wasiirka wasaaradda beeraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mudane Cumar Xuseen waxayna mas'uuliyiinta wafdigani matasharafta maalgashadayaasha xubnaha iskaashatooyinka iyo qaar kamid ah shacabka ay booqashadani ku soo indheeyeen beeraha wax soo saarka qamadinka galbeedka guday oo si wanaagsan u baxay kuna dhow xilligii goosashada madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Ibrahim Cusmaan oo ka hadlay booqashadani ayaa sheegay inuu jiro bilow wanaagsan balse loo baahan yahay in si buuxda looga faa'iideysto xilliyada soo socda kheyraadka biyaha iyo dhulka diin ee uu deegaanku haysto waxaana intaasi ku daray in xukuumadda deegaanku ay fiiro gaar ah siinayso kor u qaadista wax soo saarka beeraha ruuxaan maanta meeshaan ku beeganahay iyo wax soo saarka markaanu aragno deegaan kale la moodaya oo deegaanka Soomaalida loo moodayo wax badan oo fursado badan ayuu leeyahay deegaankeenu sidii loo baahnaana ilaa hadda loogama faa'iideysanin hadda qamadiga qorshuhu wuxuu ahaa ilaa 14,000 hektar in la beero hadda waxa laga sheekeynay meesha waa 500 hektar marka la eego fursadda ay meeshani wax soo saarayso way ka badan tahay baa la lahaa 50 hektar way ka badan tahay marka dadkeenu waad ogtihiin dad xoolo dhaqataa weeye inta badan xagga beeraha kuma fiicnin saboolnimadana waad arkaysiin dibta hadda imika ka jirta heer dal iyo heer deegaanba waxyaabo badan oo haddii dhulka lagu foorarsado fursadda jirta dhulka haddii sidii loo baahnaa looga faa'iideysto bulshadeena iyo deegaankeena iyo dalkeenaba bedeli lahaa baa jira marka kulleen fariin gaaban ganacsatayaal kala duwan maadaama ay joogaan deegaan ahaan waxaan isla qaadanay fursadaha ugu muhiimsan ee ugu waaweyn waxaa ka mid ah wax soo saarka beeraha in maaragtay fiiro gaar ah la siiyo oo wax laga qabto marka arrimaha bilow weeye maanta waxaan arkayno waliba heer deegaan oo xukuumadda isku dayaysa inay dadka wax barto laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan kulleen dad badan oo fursadan raba inay wax ka qabtaan oo ka faa'iideystaan ayaa jooga maanta meelo badan wax badan oo laga qabtay way jiraan deegaan ahaan oo inoo bilowa marka inaha in wax laga qabto waa muhiim oo deegaan ahaan wax soo saarkeena beeraha in kor loo qaado muhiim bay tahay imika qamadi deegaan ahaan iyo waliba cimilada meeshan hadda ka hor waxyaabo laga fikiray ma ahayn oo dadku ka fikiri jireen marka biyihii waa inuu haysanaa oo wax dhiba ma jiro haba yaraatee dhulkii sidaa oo kale wax dhiba ma jiro kaliya aragtideenan ku saabsan wax beerashada dhulka in lagu foorarsado unbaa inaga maqan marka inaha in wax laga qabto deegaan ahaan in fikirka dadka laga bedelo kulleen xafiiska beeraha wax badan uu ku heelan yahay way jirtaa xafiiska cilmi baadhista sidoo kale waxyaabo badan oo garaadka macnaha shacabka ee dhinaca beeraha in kor loo qaado tusaale ahaan xaggan tusaale iyay maanta u tahay shacabka xaggan degan iyo maaragtay maalqabeyaasha heer deegaan ee maanta inala joogaba marka in sidii loo baahnaado wax laga bartaa loo baahan yahay dhankiisa wasiirka wasaaradda beeraha ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mudane Cumar Xuseen ayaa ka hadlay beerahan wax soo saarka qamadinka galbeedka guday waxa uu tilmaamay in lagu xaqiijiyo sida wax soo saarka qamadinku uga bixi karo dhulka joogiisa hooseeyo ይሄ አካባቢ በጣም በውሃ በመሬት በአፈር የታደለ ነው በህዝብም የታደለ ነው deegaankan waa mid qani ku ah kheyraadka biyaha dhulka dihin iyo dadba loomana baahna shacabka ku dhaqan halkani inay sugaan qamadinka gargaarka hadda laga bilaabo waxay noqon doontaa qarashka ku bixi jiray qamadinka gargaarka inaan ku soo iibsano shinnida abuurka iyo waliba bacriminta dhulka sanadkan waxaa halkan lagu tijaabiyay 500 hektar waxaana loogu talagalay in bulshada la tuso oo la baro sida awgeed shacabka iyo maalgashadayaasha sanadka soo socda waxaan qorsheynaynaa in looga faa'iideysto wax soo saar gaadhaya 40 ilaa 50 kun oo hektar arrintan waxa hirgelinteeda iska kaashanaya wasaaradda beeraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyo macadka cilmi baadhista heer federaal iyo heer deegaanba
waxaanan idinka caawin doonaa dhinaca abuurka. dowladdu wakhtigan waxay qorshe u qaadatay in laga maarmo qamadinka laga keeno dibadda. rajada ugu weyn ee qorshahaas lagu gaadhi karana waxaa ugu horeeya dowlad deegaanka Soomaalida, waxaanan sanadkan wax soo saarka qamadinka ee aan beernay aan ku xaqiijinay 50% inaan hoos u dhigno qamadinka laga soo dejiyo dibadda. waxaanan dadaal ugu jirnaa sidii sanadka soo socda aan u gaadhi lahayn in 100% laga maarmo qamadinka dalka dibaddiisa. dhankooda odayaal dhaqameedka oo soo dhaweeyay booqashada wafdigan ayaa tilmaamay in shacabku ay diyaar u yihiin ka faa'iideysiga beeraha. waxaan leenahay bagaad nabad timaadeen, soo dhawaadaan idin leenahay. madaxweyne ku-xigeenku hogaaminayo, soo dhawaadaan idin leenahay. aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa, waana idinka mahad celinaynaa safarkiinan aad shaqooyinkiinii u soo baylayseen. aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa. marka koobaad soo dhawaadaan idin leenahay. intaa kadib qabadigii waad aragtaan waddankeenna dalagii ka baxay. waxaa la moodahayay hadda ka hor bariiska, qamadiga, wax walba oo deegaanka ku yaalla Soomaalida wuu ka baxahayaa. biyaha bilaashka abaa socda. waadna aragtaan maanta alxamdulilah siduu u baxay waad aragtaan. iska daa maxay ahayday mid la soo dhoofiye. waxaan rabnaa haddii alla yidhaahdo bankan in la waraabiyo meel kasta oo maxayday webi shabeellaa in la waraabiyo, qamadigana la beero oo laga kaaftoomo midka Ameerika laga keenayo in laga kaaftoomaan rabnaa. bariiskaa ka baxa, qamadigaad aragtaanoo ka baxa, oynu maanta dhex tubannahay. kiyo siduu u baxay aad aragtaan aynu maanta dhex tubannahay. waxaanu codsanaynaa ilaa 3,400 oo hektar oo inaga dambayso oo hadda bankaa ku taalla, iyagana in naloo maalgeliyo oo la beero. wax soo saarka qamadinka ayaana loogu talagalay in lagaga maarmo qamadinka uu dalku ka soo dejiyo dibadda, damaanad qaadka cunnadana lagu xaqiijiyo. Mustafa Yuusuf, SRTV, magaalada Goday.